tusaale aragtidan valuationka Darwin, Charles Darwin 1859 60 meelahaas inuu dhintay baan filaya oo aadamuhu daanyeer bay ka soo jeedaan oo dunidani wayse soo rogrogtay oo daanyeerkii baan noqday. quraanku magacada wuxuu ka istaagay aadam ciid baa laga abuuray laa aabba aadan oo kaloo dhalay baan jirin walaa jin baan dhalin walaa daanyeer buusan ka soo jeedin. ina mathala ciisa cinda allahi ka mathali aadam khalaqahu min turaabin. ciiddii laga abuuray baa laga sheekeeyey oo la faahfaahiyey iyadoo dhooba ah iyadoo qallalan iyadoo in dab lagu adkeeyey aada moodayso baa si fiican la faahfaahsan baa looga soo sheekeeyey. kadib waxaa laynoo keenay aragti aqoon laga dhigay oo xiisad kacdoon iyo diimo ku kac la falgashay oon aasaas cilmi ana lagu dhisin xaqiiqo la taabtayna lagu dhisin iyada lafteeduna run aan ahayn oo beena baa la yidhi daanyeer bay ka soo jeedaan lafaa la keenay wuse soo bedelay. ayb waxay noqotay naskii sharciga ahaa ee waxyigii ilaahaygii abuuray uu sheegay baa waxaa ka hor yimid ciid lagama abuurine daanyeer baa dhalay. saddex markii saddexdaba la miisaamay warkii meel la waafuuli waayey. hadday aragtidu tahay taariikh hore daanyeer ba aadama noqday ku hadda noqday oo muddo soo wareegaya ma la arkay intii ka dambaysay ma la arkay lama arag. waagaasaan qiyaasaynaa inuu iska soo gadoomay maahane 1860kii imisaa ka soo wareegtay haddana 2000 iyo joogno 20 waxaan dhowr boqol oo sana ka soo wareegtay 160 sana ka soo wareegtay weli hal daanyeeroo dad isu bedelay ma la arkay oo dad noqday. nin waxuu iga sheekeynaya shaabulcayneyn masar waagii joogay mid baa mid la hadlay yidhi wuxuu yidhi walaa waxaan ka shaqeeyaa weli afrikadaas hadda kuwa sayntii ka go'do geedaha afrika ka soo degaya oo dad noqonaya joogu yidhi daanyeero sayntii ka go'aysa oo dad noqonaya. marka waxa markay sheekada iyo hawhaada laga tago haddii waxani wax soo socday oo dhacay ay ahayd daanyeeradii way jiraan way tarmayaan way isdhalayaan hal daanyeeroo dabadu ka go'do dad noqdo maxaa loo waayay. haddaba waxaan sidaa caadi ku noqotay waxay ahayd mar labaad inay noqoto mar saddexaad noqoto mar afraad noqoto. markii la yidhi lafihii aan doonno lafahan aad tiraahdeen aadamaha asalkiisa ay ka soo jeedaan nataabsiya waa la waday laba arrimoodba inay dhaceen waad ka warqabtaan baan u malaynayaa. lafihii waxaa la yidhi waxa la raadiyey nooc doofaara oo North America ku noolaan jiray oo dabar go'ay ba daanyeerba ma ahayn. laba muqtaan filaya hadda 2003 mise 2004 inay ahaydna ninkii waktigan fikradda Darwin ee daanyeer baa laga soo jeedaayo Afrika la tagayo gorilla madaxiisa la soo helayo kuwa hore la hore aadamo u jaan jiray Ingiriiska ah London oo kii boolis ku dhacay gurigiisa isagoo madax aadama laf intuu ka soo jara mid daanyeerna ka soo jara isku kaba waatan leh hal baarade waatan iyadii baa isbedbedelayso noqonaysa kan ay daanyeerka ay dhinacan aadamada isu bedelaysa isagaana isu jarjaraya wakiil la qabtay maxkamadda la saari jiray. marka wuxuu been la alifay inay ahayd baa soo baxday. markii la yiri sidee buu ugu ka soo noqday amaliyad xisaabeed natusa ama cilmi la tixraaci kara natusana waxba way sameyn waay. waa qolada turan adduunku waa iska abuurmay say isaga abuurmay waxay dhaheen ka soo qaad hadduu kombiyuutarkan keyboardkiisa daanyeer 1 milyan oo sana ku ciyaaro kelmad isku toosan ka soo bixi kartaa waxaas hadda cilmi lagu salayn karaa. okay ma jira daanyeer 1 milyan sana ciyaaray 1 milyan oo sana markuu ciyaaray xubnahan bini aadamkii caalamkiisa u samaysan ma samayn karaa oo hadda daanyeer baa tiri iskaga ciyaaraya adigii aqliga lahaa oo samayn laada. waxani waxaa la ogaaday markii waagii hore gumaysigii iyo fikrad iyo aqoon baa laynoogu keenay buuq baa la kiciyo diintay ka hor imanaysaayo isbedelka aadamihii iyo khalqigan isa sii bedelayo sheekadii la dabagal laa lafihii baan daanyeer noqon walaa daanyeer dad soo noqdaan la helin walaa qaacide cilmi oo la tixraacay yeelan weyn kullu kadib fi kadib waa un aadamahan daanyeer baa keyboard ku ciyaaray waay been baa keyboard ku ciyaaray way ka dhagran kartaa waxaas cilmi maaha.
macnaa waa sheeko caruur weeye meelaha lagu haasaawo shuuciyaddii hanti wadaagii aadamahan adduunka ilaah ma leh sheekadii ahayd ku salaysan waay darwiiniyaduna saasay ku salaysnaydo diimay ka soo horjeedayo ilaah baa waxaan abuuray ha looga dambeeyo oo la diidanaa baa loo meelmariyey